السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاشين عشاكين وإلهي مهدي هدي أنو اسكسور لابني مر لبعض يمر ستحد يمر أفراد نقول نبضة إذنكو نبضة وإلهي مهدي أصحابي هدي أدجنا سبتهاي سبسكرايب لايك شير وحقاقة أنا قالوا وحي تلسيجيدين وحقيقة أصحابي ما أنتو وحان ربا إنان كهدلو أرن igu soo noqnoqotay bariyaha igu soo noqnoqotay su'aalo la isoo weydiiyay baan rabaa inaan ka jawaabo gabdha ayaa ila soo xiriiray gabdha Soomaaliyeed oo isoo weydiiyeen su'aalo fara badan su'aalahaas ay kamid tahay dhanka qoyska dhanka jacaylka dhanka xiriirka waa saddex su'aalood la isoo weydiiyay baan rabaa inaan maanta ka jawaabo koo waxaan ka bilaabayaa midda qoyska ah qoys haddaad maqasho waa reer meel degan oo hooyo iyo aabbo iyo carruur leh qoyska Soomaaliyeed waxyaalaha ku saabsan bay isoo weydiiyeen gabdhaha sida reerka uu ku dhisnaan karo sida maxay reerku xiriirkiisu ku wanaagsanaan karo asxaabay saa ogtihiinba xiriir markii laga hadlayo xiriir waa kan ka dhaxeeyo wuxuu ka dhaxayn karaa xiriir dad maqasho wuxuu ka dhaxeeyaa hooyada iyo aabaha hooyada iyo cunugeeda xaaska iyo ninkeeda gabadha la qabay iyo ninkeeda xiriirka dad maqasho gabadha la qabay iyo familkeeda wiilka wax qabay iyo familkiisa xiriirkuna waa noocaas haddaba haddii aan u soo dhaadhacno su'aashi ahayd xiriirka see lagu toosin karaa see looga hortegi karaa burburka qoyska siyaalo fara badan baa looga hortegi karaa number 1 kalsooni baasha la yiraahdo waa in la haystaa gabadha iyo wiilka isqabo waa inay kalsooni ka dhaxaysaa midda koowaad haddii kalsooni jirin wax dhaqan iyo reer dhisnaanay ma jiraan number 1 waa kalsoonida number 2 waxaa ah waa in aamin uu jiro haddana laisku aaminsan yahay oo gabadha iyo wiilka ay hadalka ay ku wada hadlaan ama waxay ku sheekaystaan in wax aamin oo ayaga ku eg u ahaadaa number 3 waa in meesha jacayl u yaalaa haddaanu jacayl jirin adduunkaba ma joogeen baa nin heesa yiri haddii aan jacayl jirin adduunyadu ma joogteen marka jacaylkuna waaba muhiimka udubdhaxaadka reerka jawaabtaas aan ka siinayaa marka jawaabteedu waxay tahay jacaylka kalsoonida maxay isla shaqaynta intaasba waa muhiim xiriirka qoyska udubdhaxaad u yihiin intaas hadday meesha taal asxaabay qoyskaas ma aaminsana tii ilaahay waa gooni ma aaminsan wax cilada oo saa'id oo la sheego inay u imaan karto taasaan ka leeyahay midda kale gabdhaha Soomaaliyeed waxaa la rabaa in ay yaqaanaan cilada gabar walba ninka qaba ciladiisa inay taqaano isla markaasna ciladaas ay sida ay uga jaahil bixin lahayd ay ka shaqayso bini'aadanku shanta afraad ma wada sinna bini'aadanku waa saas waa inay cilada taqaano waa inay cilad bixisaa ayadoona la wadaagaynin dad kale taasan talada ku darayaa ciladaas marka ay bixinayso waa inay iyadu ku koobnaataa Soomaalida waxay ku mahmaadaa naagtaadoo kaa hadasha waa maradaadoo kaa hadasha lama rabo ninkaaga iyo adiga waxaad ku sheekaysataan in banaanka laga ogaado ma loo baahna adigu ha kugu koobnaato ka wada hadla si degan jawi degan uga wada hadla saan walaalo ilma fiicna yaa iska dayno waa qof bini'aadana waa kaa yeelaya dad runta u sheeg walaalo kan iga daa aniga arrintan waa dhibsanayaay isaguna hadduu yira walaalay tan iyo tan iga daa waa dhibsanayaay meel dhaxaa isugu imaanayaa halkaas waxaa ku yaraanaya khilaafki la wada hadlo la wada fariisto la isweydiiyo anigu saanan dhibsadaa waxaa la helayaa xal baa imaanaya balse haddii ay gabadha inta baxdo ay tiraahdo ninka saanu yeelaa wiilkuna uu buxiro naagta saana yeeshaa ma u dul qaadan kar wala iska celi ciidanada naaha ka yeelin maxaa meesha ka imaanaya dagaal marka gabdhaha iyo wiilasha waxaa la rabaa in xalkooda ayaga uu ku ekaado
gacan saddexaad ba ay soo gelin meesha aanan lala wadaagin qof saddexaad gabdhaha iyo wiilasha labadaba waxaan kula talinayaa xalkooda inay iyagu ka tashtaan ayahooda oysan gacan saddexaad u yeeranin oo iyagu xaliyaan haddii la isu keeno of garanaya balse haddii wiilku fog yiraahdo wiil kale la tashto yiraahdo warniyahow gabadha aan qabasaana yeeshahay maxaan samey wara ka yeelin baxdhe gabadha baxdo naha ka yeelin baxdhe meeshaas waxba kama imaanayaan marka jawaabihi aad soo weydiiseen halkaasaan kaga baxayaa asxaabey xalku waa in labada qofood oo reerka ka dhexeeya ay iyagu isxaliyaan oo gacan saddexaad ba aan loo baahanin taasaan ku talinayaa kulley gacaasha ahaan idinkana dee wixii ra'yood qabtaan ila soo wadaaga saatan bay ila soo wadaagteen anaa idinka jaahil bixinayo wixii aan idinkaga waaya aragsanahay anaa idinka jaahil bixinayo marka jawaabtiin waa taasaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu